Soomaaliya hadda lagama hadlo siyaasad. waxa ugu weyn ee maanta dalka yaalla waa dagaalka Al-Shabaab iyo in laga adkaado kooxdan sida joogtada u fulisa falalka argagaxa leh ee waafaqi waaya diinta iyo bini'aadanimada. kooxda xukunka haysa ee uu hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa badi ka muuqata inay daacad ka yihiin dagaalka looga soo horjeedo Al-Shabaab, walow ay jiraan kuwa lagu eedeynayo inay dhaqaale ka dhex raadinayaan kacdoonkan shacbiga ah. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa qofka uu go'aankiisu macnaha ku fadhiya maanta. fariimaha uu daayay ee dagaalka ku wajahan, kulamada uu la galay dadka kaalinta ka qaadan kara dagaalkan, iyo xogaha laga soo wariyay intuba waxay muujinayaan inuu dagaalku dhabka yahay. taariikhaha uu Xasan Sheekh ka tagi karo waxaa ugu muhiimsan inuu Soomaali dhaafiyo Al-Shabaab. siyaasiyiinta aan saarnayn tareenka Xasan Sheekh ee damaca xukunka qaba ee loo yaqaano mucaaradka waxaa laga soo warinayaa cagajiid iyo inaysan si weyn ugu raaxaysanaynin in nidaamka hadda jooga ay ka adkaado Al-Shabaab. ma ahan inay qaarkood Al-Shabaab jecel yihiin ee waxay door bidayaan inay guusha qayb ku yeeshaan si ay ugu yaraan wax ugu goyso ololaha dambe. waxaan la hadalnay qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka iyo dadka ku dhowdhow. inkastoo aanay toos u mucaaradi karin kacdoon ka socda, haddana waxaa hadalkooda laga dheehan karaa inay jeclaan lahaayeen inay dowladdu ku casuunto miiska lagu go'aaminayo dagaalka Al-Shabaab. uma badna inuu jiro siyaasi diidaya haddii uu madaxweyne Xasan ku casuumo inay aragti iyo abaabulba qayb ka qaataan dagaalka socda. haddaba ma laga yaabaa inuu Xasan Sheekh u yeero mucaaradka mise ku habboon tahay marxaladan? dadka qaar waxay ku talinayaan in si kacdoonka loo Soomaaliyeeyo loona muujiyo inuu ka caagan yahay dan siyaasadeed, inuu madaxweyne Xasan Sheekh u yeero Farmaajo, Sheekh Shariif, Xasan Khayre iyo siyaasiyiinta kale ee miisaanka ku leh dalka oo uu ka dalbado inay dowladda ku garab istaagaan dagaalka dalka looga xoreynayo kooxda Al-Shabaab. iyadoo aan laga tegaynin qadiyadaha siyaasadeed ee qolo walba u gaarka ah, haddana in loo midoobo dagaalka Al-Shabaab oo mucaarad iyo muxaafidba ay kaalintooda qaataan waa mid fududayn karta ayaa la leeyahay in degdeg loo rujiyo Al-Shabaab. in siyaasiyiintan la helo waxay xoojin kartaa dareenka shacabka, waxay meel sare gaarsiin kartaa mashruuca dagaalka, qaarkoodna dunida ayay ku qancin karaan inay dhaqaale fiican ku taageerto howlgalka socda. marxalad walba oo midnimo lagu wajaho miro dhalkeedu waa fudud yahay. ma cadda inuu madaxweyne Xasan Sheekh arrintan mudnaan siin doono, laakiin wuxuu marar badan ku baaqay in la iska kaashado dagaalka Al-Shabaab. in nidaamka xukunka jooga keligiis mar walba lagu halleeyo dagaalka Al-Shabaab waa la soo tijaabiyey, lagumana guulaysan. Xasan Sheekhna wuxuu dhowaan sheegay in la tijaabinayo wax ka duwan wixii lagu dhaqmi jiray 15 sano ee la soo dhaafay si loo helo natiijo ka beddelan wixii hore. maxay kula taadiga?